وحسب ما وصلني الآن كذلك هناك رسالة أتت من وسيط أمريكي وسيط عربي يرجو إيران أن لا ترد. dowladda dalka Iiraan ayaa wacd ku martay inay argoosan doonto kadib dilkii abaanduulihii ugu awoodda badnaa militariga dalkaas oo toddobaadkii hore ay ciidamada Mareykanku duqeyn ku dileen. warar hordhaca oo laga helay dhinaca Mareykanka ayaa sheegaya in Mareykanku uu heegan sare u geliyay ciidamadiisa oo ku sugan meelo kala duwan oo bariga dhexe. dhinaca kale waxa wararku ay sheegayaan in Mareykanku uu aad uga cabsi qabo nooca argoosi ee dowladda Iiraan ay samayn karto. wararkii ugu dambeeyay oo laga helay dhinaca dowladda Mareykanka ayaa sheegaya in Mareykanku uu Iiraan ugu baaqay inuu cunaqabataynta ka qaadayo magdhow dhaqaale oo dhinacyo badanna uu siinayo haddii ay ogolaato inaysan Mareykanka ku soo qaadin weerar argoosi. waxaa arrintaasi warbaahinta uga warramay diblomaasi reer Iiraan ah oo la yiraahdo Amir al-Musawi isagoo arrimahaas ka hadlayna waxa uu yiri وحسب ما وصلني الآن كذلك هناك رسالة أتت من وسيط أمريكي وسيط عربي يرجو إيران أن لا ترد. وهذا الأمر أنا لا أعتقد أنه سيكون له وزن في إيران لأنه رسالة من وسيط عربي ستأتي التطميعات يعني وصلت رسالة إلى إيران من وسيط عربي يرجوها بأن لا ترد. أيوة ووعدت الإدارة الأمريكية بإمكانيات كبيرة اقتصادية ورفع عقوبات وما شابه ذلك. أنا أعتقد هذا الأمر سوف لا تهتم به إيران لأن الوعود الأمريكية كلها كاذبة وهي تريد امتصاص الغضب الإيراني. وأعتقد أن الردع آتي لكن الحنكة والحكمة الإيرانية عادة حسب معرفتنا بالسياسة الإيرانية أنها لا تستعجل. طيب سيد موسى sidana la ku soo wargeliyay waxaa jirta fariin loo soo dhiibay dal carbeed oo Iiraan looga codsaday inaysan jawaab ka bixin dambigii laga galay. waxaa fariinta waxyaabaha ku qornaa ka mid ah inuu Mareykanku cunaqabataynta ka qaadayo Iiraan isla markaana bixinayo damaanad dhaqaale. ma qabo in ballanqaadkani uu u qalmo Iiraan mana aha mid ay aqbali doonto maxaa yeelay ballanqaadyada Mareykanku inta badan waa been waxayna tan doonayaan inay ku dajiyaan carada dadka Iiraan iyo dowladooda. kadib dilkii Suleymani waxa laga cabsi qabaa inuu dagaal ka bilowdo gobolka bariga dhexe. waxaana warbaahinta dunidu falanqaynaysaa kadib dilkii taliyahaas inta ay la eg tahay awoodda militari ee dalka Iiraan. waxaan soo qaadanaynaa nuxurka warbixino kala duwan oo laga qoray awoodda militari ee dalka Iiraan. tirada militariga dalka Iiraan ayaa lagu qiyaasay 523,000 oo leh cutubyo kala duwan. 350,000 waa ciidamada joogtada ah. 150,000 waa ciidamada ilaalada kacaanka ee loo soo gaabiyo IRGC. 20,000 waa ciidamada badda waxayna qayb ka yihiin ilaalada kacaanka islaamiga ee Iiraan. waxay ciidamadani ku howlgalaan doonyaha iyo maraakiibta ilaalada xeebaha waxayna si gaar ah uga howlgalaan marinbiyoodka Hormuz oo horay dhowr jeer iska horimaadyo lagu afduubtay maraakiib uu uga dhacay sanadii 2019. ciidamada ilaalada kacaanka Iiraan waxa hoos yimaada guutada lagu magacaabo Basiij oo ah xoog si tabarucaad u howlgala isla markaana gacan ka geysta cadaadiska lagu sameeyo dadka dowladda ka soo horjeeda ee gudaha dalka Iiraan. ciidamada ilaalada kacaanka Iiraan ee IRGC waxa la asaasay 40 sano ka hor si ay u difaacaan nidaamka islaamiga ee Iiraan. cutubka lagu magacaabo xoogga Qudus ee uu hogaamin jiray General Suleymani ee la dilay waxay ka howlgalaan goobaha ka baxsan Iiraan waxayna ka soo fuliyeen howlgallo badan sanadihii ugu dambeeyay. waxay wakiil ka yihiin ilaalada kacaanka waxay si toos ah u hoostagaan hogaamiyaha ruuxiga ee Ayatollah Ali Khamenei. waxaa la rumaysan yahay in xooggan lagu magacaabo Qudus ay tiradoodu ka badan tahay 5,000. cutubkan waxaa horey loogu daadgureeyay dalka Suuriya waxaana qayb ka ah taliyaal military oo daacad u ahaa madaxweynaha Suuriya Bashar al-Assad. ciidamadaas ayaa la sheegay inay ahaayeen xoogii gacanta weyn siiyay madaxweynaha Suuriya xilligii kacdoonka waddankaasi uu ka bilowday isaga looga soo horjeeday. ciidamadaas ayaa la sheegay inay xasuuq balaaran ka geysteen Suuriya. guutadaasi dalka Ciraaqna way ka howlgaleen
waxaana ay taageereen maleeshiyaadkii shiicada ah oo iyagu ka adkaaday kooxdii la baxday dowladda islaamka. qiimaha qalabka difaaca ee iiraan ay dibadda ka soo iibsatay intii u dhaxaysay 2009 ilaa 2018 ayaa ah mid u dhiganta 3.5 boqolkiiba, sida uu sheegay macadka caalamiga ah ee cilmi baaridda nabadda ee fadhigiisu yahay Stockholm. inta badan waxay qalabka gaashaandhigga Iiraan ka soo iibsataa dalka Ruushka iyo Shiinaha. gantaalada Iiraan waa mid ka mid ah quwadeeda military ee ugu xooggan uguna muhiimsan, iyadoo ay jirto awood dhanka cirka ah oo aan la dhayalsan karin. waaxda gaashaandhigga Mareykanka ayaa ku tilmaantay in awoodda gantaalada Iiraan ay yihiin kuwa ugu xooggan bariga dhexe. gantaaladan ayaa ka kooban kuwa ridada gaaban iyo kuwa ridada dhexe. Iiraan waxa ay tijaabisay tiknoolajiyada hawada sare si ay awood ugu yeelato horumarinta gantaalada qaaradaha isaga gudba oo meelo fog gaari kara. barnaamijka gantaalada ridada dheer ayay Iiraan hakisay, taasina waxay qayb ka ahayd heshiiskii nuclear-ka ee Iiraan 2015 ay la gashay dalalka quwadaha waaweyn, sida laga soo xigtay macadka Royal United Service Institute. gantaalada Iiraan ayaa gaari kara Sacuudiga iyo gacanka Carbeed, waxaana sidoo kale suurtagal ah inay bartilmaameedsadaan dalka Israa'iil. Iiraan waxay samaysay awood dhanka diyaaradaha aan duuliyaha lahayn muddooyinkii u dambeeyay. diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee Iiraan ayaa sanadii 2016 waxa loo isticmaalay dagaalkii ka dhanka ahaa kooxda Daesh. Iiraan ayaa sidoo kale waxa ay diyaaradaheeda aan duuliyaha lahayn mar ay galeen hawada Israa'iil iyagoo ka soo kicitamay saldhig Suuriya ay ku leeyihiin. bishii Juun 2019 Iiraan ayaa soo riday diyaarad ah nooca aan duuliyaha lahayn oo Mareykanku leeyahay, waxaana Iiraan ku andacootay in diyaaradaasi ay soo gashay hawada Iiraan. Cabdirasaaq Shubba oo idin leh intaan dib u kulmayno sidaas iyo nabadgelyo. پدافند هوایی خاتم الانبیا که با سینه‌های ستبر و گام‌های پولادین و استوار